بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور نعيمة أهدن حسين كنا تخصصتي عذرات كلها هوينك داوين تودا إيه قليمة كان هول قشة إسبيتال كدلمر سبيشاليستيك أنتيجين هوسبيتال ما أنتو حروينا كهادلو محا دعايا هويد أوركله هدي أي صونتو سامين انتي لأيك أيوكو يلان كرا صونك هويد أوركله saameynta waxaa ka mid ah tabarta jirka oo yaraata sida hooyada inay dareento dawaqnaan madax xanuun wareer iyo matag badan oo kale hadii ay ku jirto marxaladaha uurka bilaa hore oo kale sidoo kale saameynta uu ku yeelanayo waxaa ka mid ah hooyada inay noqoto dehydration oo ah biyaha jirkeeda inay ku yaraadaan hadiisan hooyada aysan cabin biyo ku filan sidoo kale saameynta uu ku yeelanayo hooyada uurka leh waxaa ka mid ah soonka in dhiigeeda hoos u dhaco dhiig la'aan inay noqoto ama sokorteeda inay dhacdo kuwaas oo keenayo hooyada hadii aysan isticmaalin cunto nafaqo leh oo ku filan saameynta uu ku yeelanayo ilmaha uurka ku jiro waxaa ka mid ah in ilmihii miisaankooda oo yaraado koritaankooda taas oo keenayso hooyadii oosan isticmaaleynin cunto nafaqo leh oo ku filan sidoo kale ilmaha saameynta uu ku yeelan karo waxaa ka mid ah in ilmihii ay yaraadaan dhiigkiisa ama koriimadiisa inuu yaraado maxaa looga baahan yahay markay rabto hooyada uurka leh inay soonto in ay cunto ku filan oo nafaqo leh xilliga suxuurta iyo xilliga afurta oo ah cunto borotiin leh cunto carbohydrate leh cunto fibers leh iyo vitaminiska iyo mineralska inay hooyada si joogto leh u qaadato iyo waxaa kaloo laga rabaa hooyada inay cabto cabitaan ku filan xilliga waqtiyada suxuurta iyo afurka sidoo kale hooyada uurka leh waxaa laga rabaa inay sameyso nasiino ee iska ilaaliso waxyaalaha daalka u keenayo oo enerjiga oo ka luminayo inaysan qabanin howlo fara badan si ay u keedsato enerjigeeda hooyooyinka uurka leh waxaan kula talin lahaa oo rabaan inay soomaan in ay la xiriiraan dhakhtarka si loo ogaado loo baaro xaaladooda caafimaadka haddii hooyadii ay ku jirto xaalad high risk sida hooyada inay dhiigkar qabto oo kale ama inay qabto uurka macaanka ee u baahan tahay in xanuunaadkaas laga daaweeyo haddii hooyadii ay u baahato inay soonto ka hor soonkeeda dhakhtarka inay la tashato baaritaano loo sameeyo daawooyin vitamiiniskeeda mineraalskeeda macdanta joogto u qaadato iyo cunto nafaqo lehna inay qaadato waxaa ku soo dhaweynaya isbitaalka Dalmar Specialist Hospital anigoo ah Dr. Naciimo si nilagala socdo xaaladiina caafimaadka hooyada uurka leh la socodkeeda wala mahadsantiin Dalmar Specialist and Teaching Hospital. Higsigeenu waa caafimaadkaaga.